mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta deeq raashin ah u qaybiyey dadka xooluhu ka baxeen ee kusoo barakacay koonayaasha magaalada Burco. deeqda raashinka ee loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka xooluhu ka baxeen ayaa qayb ka ah barnaamijka la afur xisbiga wadani, waxaana goobtaasi lagu qaybinayay deeqda raashinka ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo sheegay in xisbiga wadani door muhiim ah ka qaadanayo gurmadka loo sameeyo dadka xooluhu ka baxeen ee ku guda jira bisha barakeysan ee Ramadaan. laakiin waa waxtar waa damqasho waxa weeyaan in la ogaado dadkeenii dhibaataysnaa inay daryeel u baahan yihiin, inay u baahan yihiin ka warhayn, inay u baahan yihiin maxaan ku dhahdaa ogaansho. marka waxaan leenahay halkan programkii caanka ahaa ee la oran jiray la afur wadani ayaa halkan lagu qabanayaa. waxa weeye kolay Ramadaan baynu ku jirnaa tinka waxaanu afuradii mashruucii khayriga ahaa ee la afur wadani ee bilaabmay sanadkii 2015kii aanu ka bilownay magaalada Burco gobolka Togdheer, kaasoo aanu raashin deeq isugu jirta bariis iyo saliid iyo sonkor iyo timir isugu jirta aanu gaarsiinay 100 qoys oo kamid ah ka kala yimi afarta waaxood ee ay ku jiraan dadka aad u baahan ee aad u tabaalaysan. sadaqadaas oo ay soo dirsadeen dad muxsiniina oo meel adduunka kala wada jooga. waxaanu leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad idinka siiyo. ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay dadkiinu aad bay u dhibaataysan yihiin, soo caawiya dadka tabaalaysan ee abaaruhu ku dhaceen, shubanka iyo xanuunadu uga dambeeyeen gobolka Togdheer iyo nawaaxigeeda dhibaato aad u fara badan baa ka jirta. waxaan ku boorinayaa inay dadkooda dhibaataysan soo caawiyaan. waxaan kaloo halkan aad uga mahad celinayaa dhammaan howlwadeenadii igala shaqeeyay waaxda samafalka iyo mashruucan la afur wadani intii soo dhiibtay oo ku kala nool waaxaha daafaha adduunka. waxaan kaloo aan marnaba iloobaynin oo halkan aad uga mahad celinayaa Fuad Xuseen Cabdilaahi iyo Suhuur Xasan Abiib oo iyaguna barnaamijka mid lamida ka daahfuray wadanka Canada. lacagtaas tabarucaadkaana ay soo gaarsiiyeen dadkooda baahan ee halkan ku bixinaynaa sidii looga bartay hadda koorba la afur wadani wax la yiraahdo oo gobolada Somaliland sanad walba bisha barakaysan ee Ramadaan laga qaybiyo oo sanadkii hore laga qaybiyay oo garadag iyo kabaabigeeda. sanadkana laga qaybiyay gobolka Togdheer oo loo qaybiyay afarta waaxood ee magaalada Burco. waxaan leenahay jazaakumullahu khayran jazaa. waxa sida madaxa Layla madaxa waaxda samafalka Layla Muuse Yusuf ama Layla Muuse Qulumbe. waxaan leenahay jazaakumullahu khayran jazaa. ummadaadii oo tabaalaysan oo abaar iyo shuban isaga dambeeyay waxaad u soo uruurisay ee habeen iyo maalin u socotay yawma min al-ayam bedelaysa xasanaadka Leeyahay Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. sida walaaladii iga horeeyay sheegeen mashruucan waa mashruuc khayriya oo la magac baxay la afur wadani. waxaan leenahay intii dibadda ka soo uruurisay iyo howlwadeenada dalka oo ay hogaaminayso madaxa samafalka xisbiga wadani Layla Yuusuf Qulumbe iyo intii wax ku soo darsatay aad iyo aad baad mahadsantiin baan leenahay. jazaakumullahu khayran. ilaahay halkaad ka soo bixiseen khayr hayna ku bedelo. waxaan inta ku sii darayaa dadkani waxaan dadka Burco amba Somaliland barigeedo magaalooyinkii waaweynaa iyo tuulooyinkii aad taqaaneen waxay isu bedeleen kaamam waaweyn oo qaxoonti. guri kasto Burco kuwii daaraa ku jiray waxa la nool reer kasta intii wahaa in ku dhow oo xoolii ka soo dhamaadeen. marka waxa la oran karaa Burco waxay isu bedeshay kaam weyn oo qaxoonti. marka waa in la ogaadaa. waxaan baa u jeedinaynaa xukuumadda Somaliland iyada ayaa mas'uulka ah dadkan inay waxay tari kartaan waxba ka akran inay dadkan u dadaalsho inay la timaado qorshe dadkii xooluhu ka baxeen xanuunadu u dambeeyeen ee maanta gacmuhu farahoodu maran yihiin in maaragtay qorshe loo sameeyo wax lagu tarayo mustaqbalka inay la yimaadaan. 10kii June 2017 waxaanu halkan aanu joogno xafiiska wadani
qaybtan City Palace gobolka Togdheer waxaanu halkan laga daafuray mashruucii khayriga ahaa ee horeba u socon jiray la afur wadani ayaa halkan aanu maanta isugu keenay waxa halkan dad danyar ah oo masaakiin ah ayaa jooga 100 qoys ayaa la guddoonsiinayaa raashin isugu jira bariis sonkor saliid iyo timir waxaan leenahay in alla intii ka qayb qaadatay halkan waxa nala jooga madaxa samafalka Marwo Leyla Muuse Yuusuf oo aad iyo aad arrimaha khayriga uga shaqeysa mar horena na soo gaarsiisay bisheedina aan na soo gaarsiisay oo gobolka soo gaarsiisay qaar ka mid ah dadka loo qaybiyay deeqda raashinka ayaa iyaguna u mahadnaqay mas'uuliyiinta xisbiga wadani iyo sidoo kale cid kasta oo ka qayb qaadatay keenista deeqda raashinka. Allah idin barakeeyo adagina Allah jabiyo aniga Allah idin dheereeyo akhriya adduunka barako ayaan idin ka barinay Ilaahay adawga Allah idin ka indasaabo aniga Allah idin raajiyo Allah idin barakeeyo Allah idin barakeeyo dawladii tilqaada ee taranta ee barakowda ee lagu reeyo Ilaahay Khaliil Barrawraan shabakada Burco online magaalada Burco.